mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee deegaanada maamulka uu ka armiyay koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ugaas cusub maanta caleemo saaray iyadoo munaasabadaasi lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wariyana Maxamed Aadan Socdaal ayaa warbixinta warkan magaalada Baydhabo ka soo diray. munaasabad lagu caleemo saarayay ugaaska guud ee beel ka mid ah beelaha deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Bay waxaana ka qayb galay wasiir ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya xildhibaano siyaasiyiin nabadoono iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Baydhabo. munaasabada ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah qaybihii kala duwanaa ee ka qayb galayaasha iyagoona ku amaanay beesha imika caleemo saaranayso nabadoon ay yeelatay dhawaanahan مسؤولنا كي تلقن هجاميو ما تلقى شليش ذيك قوم لكن هو بوجاز بي بملاك بي ما يلفظي أنكو يبقوا كل شيء ده أبو معنا عمطور دنيا ولا نيجي ما قبل كله والمنه دولة كوفر قلبات شريف حسن شيخ عادم بتوينا ما يلفظي إن معناها للشق أيو ورالنا أنا دتك إسكالون أنا رنت أبو غير قال إيه أنا كفرح سنة شخصيا ملاك الدورة دي أوكي كان من هاي على مسارنا إيه أنا رواية ولين الجيلا ما أرنا إلهي يدين شيء كقول يسوع ما يرنا دتي سمت بحين نصوب بإني إلهي كوارا وأنا أنضاء يانا ولا هرتجي كان إسكالون الدعاء وين تأسي وين أكتئي وين كالسيون دي مجتمع ساس دراتي أنا جودو وين بودي وشيء كذاين marka malaak way kidiri runtii way la qaybsaday markor farxad marka la maadwayba kuwaanay marna badan jid maray oo samari jid ku geedisan kaasay oo ay jid ku samaro iyo sanagada dadsigu salatalada bulshada bitaansha qoyti inada bulsho meelaha roogta ka meelaha rabitaanka dadka admeelka jeey taasoo runtii guuleed maraha wanaagsan liindeeri ملاك دورنا وشان وريد إذا كحجوين تيمكذا ملاكي يبين بقال الله هاي جلتانك يو برشلة. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Master Aadan isagoo ku booriyay ugaaska la caleemo saarayo inuu bulshadiisa u adeego loo soo horay loo doortay beesha reer luway ay ka soo fikireen soo doorteen nin hufan aqoon-yahan ah aan wada garanayno ma taqaanaayay inuu sama bixiyo beeshaas ay hore ugu soo fikireen ayaa maanta waxay noogu yeereen laba saarkood way ku mahadsanyihiin yani cid kasta waa xur beelaha Soomaaliyeed beel kasta xaq waxay u leedahay ma taqaana ila xaq u la dhaqankeeda inay dhisato ay dibadaba u aasto ugu dambeyntii Malaag Mukhtaar Sheekh Aadan Yarow oo ahaa ugaaskii la caleemo saarayay ayaa halkaasi ka hadlay isagoona sheegay in shacabka si daacad ah uga adeegi doono qalqaali inay ugaas guudiyo dooradaan ugaas damadii hadooradaan aan haydkeen mar lama latan inis helqaamay inay caleemo saaran ya mahadnaq mahadsantahay tankalam may balan qaaday إني أنا وددي السهضة هرتي إلهي سبحانه وتعالى يقفجي إن أنا وددي السهضة أنا مرضى ومتنكي جاميو ما دام بيلي تيدا مانتي هسكراتي إن أنا هجام النجو إلهي سبحانه وتعالى ما يبلغ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم لعلكم تفلحون. محمد آدم سعدال شوبلان TV Baydhabo.